نتشنى وعلى الحب نعيش ونحيا نتألف خيرا وسخاء نتوهج خلقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيبت أفراد برنامج كيني ليبانتا جوكا وولي شيخنا وحان سيودنا وشكرانسية سؤال شمانتا أغوينا كويدي وحيتا هاي سؤالها أيها وناكسن قفك إن ويديو قبضا إن ويديسو ويلكا إنتا إيسان يسكوفسن كو. الحمد لله. runtii aniga maskaxdayda waxaa ka buuxaya su'aalo aad u fara badan. waxaa isleeyahay su'aalaha aadka ugu muhiimka waxa weeyaan qaabka mas'uuliyadda loo xumbaarayo ama qaabka lamaanuhu labadoodaba mas'uuliyadda noloshu waa mas'uuliyade qaabka noloshu u wadaagi lahaayeen mas'uuliyaddana ay u qaadi lahaayeen haddii uu khilaaf yimaado qaabka ay labadaaba oga bixi lahaayeen oo barl amaan oga bixi lahaayeen qofku haddii intuu bad galo oo badda ku qarqoomo waa inuu ka fikiraa wuxuu qabsado iyo geed uu qabsadaba inuu siduu u bixi lahaa waa inuu ku fikiraa labadaa qodob horta laba qodob oo asaasi ah ay muuqataa qodobka mas'uuliyadda iyo qodobka labaad oo haddii uu dhib yimaado ama khilaaf yimaado khilaafka wax laga bixi lahaa laakiin mas'alada khilaafka iyo ogolow marka inaan laba qodob oo kale ku daro oo dhaho waxaa wanaagsan sidoo kale aad uga wada hadlaan waxa khilaafkeedi kara daatadiisa waxana khilaafkii baa dhacay see looga baxaa weeye cudurkii baa yimid see daawo loo helaa weeye waxna waa alwiqaayatu khayru min alcilaaj jaakaadka waxaan u qabo waxaan maantaqana u qabo iskaasha u qabo qabow baa iska ilaalinaya marka horeba xanuunkan iyo cudurkan iyo khilaafkani xagee ka imaan karaa dhinacee ka soo geli karaa sideen marka horeba albaabka u xidhi karaa qodobkaas waxaan arkaa inuu yahay qodob aad iyo aad qodob muhiim ah maxaa kale su'aalo kale ma jirto oo qofka wanaagsan inuu weydiiyo tuusan guusan karo waa aragtida nolosha in laga wada hadlo hadday noqon lahayd qaab qoraal ah iyo hadday noqon lahayd intoos la isu weydiiyaba qofka wuxuu nolosha uu doonayo uu ku riyoonayo ama qaab nololeed dadku isku dabeeca maaha dadku iyagoo wanaagsan bayna haddanana mutataabiq isku ahayn marka in nolosha la isla fahmo wax alla wixii in nolosha la isla fahmo keenaya مثلا هذا نينكو markuu gabadhiisa lamaanaha uu gabadhii nolosha la wadaagi lahaa uu baranayo wuxuu kala hadli karaa مثلا qawaamadii iyo xuquuqdii isaga uu lahaa ayuu gabadhii kala hadli karaa diiniyan iyaduna sidoo kale waxyaabaha dabeecooyin qaar ay jirto oo kale ay isna ay kala hadli kartaa saasay marka isku baran karaan waxaan runtii fiiro gaar mudan iyo inaan farta ku fiiqo meeshana adduunyo la jooga adduunyadu dhamaystir mar alkamaalu lillahi wahda isu gaadhay gabadha tiraba meel un baa go'aan bay Soomaalidu tiraahdaa marka qofka markuu qof raadinayo oo ama uu su'aalo weydiinayo ama uu baranayo inuusan isku dayin inuu helo qof 100% saliim ah 100% saliim oo fiyow oo malaa'ig ah inuusan qofka uusan isku dayinayo qofkan hadduu nolosha isla fahmayaan in ka badan 50% waxa weeye dhanka kale ay noqonaysaa marka in waxyaabihii nolosha iyo liibaanta qoyska wax alla wixii saameyn ku leh inay labada qof ay ka wada hadlaan way inta aan waliba aqdigu dhicin gabdhuhu waliba gaar ahaan gabdhaha waxaan u sheegaya chance bay haystaan inay kala hadlaan ragga ay guursanayaan inta aysan aqdigu dhicin mar aqdiga hadduu dhaco waajibaad iyo xuquuq baa ratimay sifaan sheekhana halka ugu wanaagsan labada qof inay isku shukaansadaan horta dhulka ilaahay waa balaaray sida ugu qiimaha badan ee ugu fiican ee ugu wanaagsan horta waxa weeye gabadhuna ay ku dareemayso xurmad iyo xushmad ay ku dareemayso ninka laftiisa inuu qof mas'uul oo qaali ah oo maxaa la yiraahdaa iikeen uu helayo uu dareemayo waa gabadhu in ay gurigeeda ay wiilka ku wada hadlaan مثلا haddii intii fadhiga labada loo baneeyo albaabada la furo wiilkii gabadhu ay kaga wada hadlaan guriga dhexdiisa aragtideeda waa cizo waa sharaf wax wanaagsan haddii taa laga soo tago meel public oo yaani sida meelaha librariyada wax lagu aqristo iyo wixii la mid ah inay matqana labada qof marka qaarkood kaga wada hadlaan waa wax meesh ku jiri kara laakiin marna waxaan ayadu adag aan suurtagal ahayn naxiye diiniyana u adag hadhowtana akhlaaqiyadkeeda iyo shakigeeda reerka dib ugu soo noqon doontaay inay labada qof ay khalwo isla galaan ama gooni isla noqdaan taas oo wixii ka imaan doona ay saameynayso carada alla markii laga soo tago kadib ay saameynayso xataa noloshooda mustaqbalka dambe si fiican sheekhana maxad nasiixa aad siin lahayd nimanka gabdho badan la sheekaysanaya ama shukaansanaya
ama sidoo kale gabdhaha nimanka badan la sheekaysanaya shukaansanaya intaysan guursan ka hor niman badan hal ma isku dhex wado diinteennu waa diin wax walba ka hadasha diinta ka hadashay sida loo galo cazakumullah musqusha ma u malaynaysaa inaynan ka hadlin qaabka loo wada hadlayo qaabka guri iyo lamaana loo yeglay inaynan ka wada hadlin laa shaka fi dalik way ka hadashay marka waa in qofku uu ogaadaa horta inuu imtixaan ku socdo inuu miisaan saaran yahay inay dadku shuhadaaullahi fii ardihi inay yihiin ninka dhallinyarada ah ee gabdhaha islaamka oo dhan wada raaf goynaya ee isu wada maraya ee tan ku fiiri tan ku fiiri tan ku fiiri tan ku fiiri ee hadhow markii la weydiiyena kule waa iska shukaansanaya waa iskala baashaalayay ninkan waxaan ugu naseexaynayaa inuu ogaado gabdhaha inay gabdho walaalihiisoo kale inay yihiin habaryarihiisoo kale inay yihiin eedooyinkii hooyooyinkii oo kale inay yihiin inuu laga yaabo inuu gabadhan waxaan uu ku samaynayo berri walaalkii inuu guursado gabadheedii inuu wiilkiisa inuu berri guursada laga yaaba marka mujtamacu waa mujtamac la doonayo inuu nin walba dhankiisa ka ilaaliyo midda kale raganimo ma aha ninka waxaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuu diiday in yani matalan gabadh nin walaalkaa ah gabadh u doonan ama gabar uu maartay rajo kale yahay in aad ku falisto waxaa ka dhimanaya mujtamacii marka inuu isku hodo inuu isu cadhoodo inuu qalbiga wax isugu qabto ayaa ka imanaysa waxaan ku darnaa masalada ma in laga fiirinayo naaxiya sharciya mise in laga eegayo xagga waaqica sheekhu wuxuu xoog aad u saaray xagga waaqica runtii fasahaadka ee ka imaanaya iyo dulmiga gabdhaha laga gelay laakiin naaxiya sharciya marka laga eego naaxiya fiqiya marka laga eegaayo ayadoo dawaabiteeda ay la socotahay way bannaan tahay haweenayda inay 2 nin ama 3 nin hal mar wada shukaansato lidaalika soo hinda ma ahayn gabadhii u timid nabiga sallallahu alayhi wasallam ee tiri waxaa ishukaansaday hebel waxaa ishukaansaday hebel waxaa ishukaansaday hebel saddexdaa keen guursadaa uu marka nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam hebel ha guursanin dumarku laayaa oo dilaa hebel ha guursanin waa bakhiil waxaan ku dhihi lahaa hebel guurs marka haddii arrinta dawaabiteeda ay leedahay hal mar bay culimmadu aad uga hadlaan hadduu qofku uu qof u leexdo مثلا قبل بقى صدح ويل شو كان سنيسي أما إسكو شو كان سنيسي أما ساسو كله أما قويل بقى هدو ميت كمية أقول لي حدو قلبي يسو بقول كي بتضبعات تقول لي عياي أنت كلا خيانة وقوة ضايع مركوين وأنت كلا جوجيا لكن أنتوا سجوان جارين أو قبلنا بارة يتنا بارة يتنا بارة يو حصيلة يو وح أصو بحنا مركز دم وجوان كو جارياي وحيلتها هاي ولا بدو يكهذا أرتاح وحده عشاق الجنات العليا ودعاة الرحمة للدنيا سفراء للحب صح صح هذا مركز لو كهل لي جورك يو أنا ما يقبل بعض مرة سكوت حاستي ما يحلم مرة واحدة هذا تشكر سنة يقدر تشكر سنة أنا وح موت حوي ma garan karo